بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. soo dhawaada dhamaantiin waxaanu ku guda jirnaa casharaanteena ku saabsanayd higaada carabiga gaar ahaan waxaanu ku jirnay xuruufta loo adeegsado luqada carabiga waxaanu soo qaadanay 15 xaraf halkan waxaanu ka guda galaynaa xarafka 16aad ee kamid ah waxa loo yaqaan xuruuf hija ama xuruufta higaada carabiga xarafka 16aad waa xarafka noocan ah waxa loo yaqaan xarfu ta حرف الطاء ayaa loo yaqaan حرف الطاء الطاء qaab qoraalkeedu halkaas ayaad ka bilaabaysaa sidan ayaad soo yarogaysaa qaybtana saas ayaad tuusinaysaa waa saadka intii aynu ku soo marnay hoostiisa qaybtii dambe ee sida noonka kale saas oo kale ugu daba xidhnay aan ba laga jaray marka qaybtan saadka aynu ku soo balbalaarinay sidan ayaa loo yar xoodiyay sidii fatxa saa u jiifto kale kordhig saa u jiifto kale yani waxa weeyaan halka markaad soo yar wareejiso يعني waxa weeyaan qayb toosan oo alif yaro yani waxa weeyaan jiifta ayaad soo hoos dhigaysaa saadka in damba saa ugu daba xidhnay marka intii ma laga jaraya way inta markaad sawirto alif ayaad halkan iska dul dhigaysaa alifta ayaad iska dul dhigaysaa dabcan halka oo kala ayaad kaga xiraysaa oo halkan hore kaga ma xiriisin xaqana kaga ma xiriisin bartan ayaad kaga xiraysaa alifta ayaad iska taagan khadka nasxiga oo khadkan hadda aynu ku guda jirnay inta badan kitaabka quraanka uu ku qoran yahay waxa la dul dhigaa soolka yar oo kale ayaa saa loo dul dhigaa waxa weeyaan haddaad ka tagto oo alif yar taagan oo saa inuu dul dhigtana wax dhaba male xarfu taa qof qoray baa lagu xisaabanaya wayahay kaasi waa xarafka 16aad ee xuruufta carabiga waxa loo yaqaan xarfu taa waan ka gudbiyaa waxaan u gudbinaa xarafka 17aad ee kamid ah xuruufta higaada xarafkan waxa loo yaqaan xarfu dhaa xarfu dhaa xarfu dhaa qaab qoraalkiisu isagana waa sidatan wuxuu la mid yahay طبعا waxaanu ku guda jirnaa tartiibteena quruxda badnayd ee ahayd mid isku xijisiinaysa xuruufta isku qaab qoraalka ah laakiin ku kala duwan dhibicda marka qaab qoraalkiigu gabi ahaanteedba waxay la mid tahay tii hore aan ku sharaxon ku balbalaariyay marka waxba qaab qoraalkiigu ku cilmi maayo laakiin dhibicdaas bay ku kala duwan yihiin marka xagga dhawaqana waa ay ku yara kala duwan yihiin tani waxay yani ka soo baxdaa carabka caaradiisa oo lagu qabtay foolasha caaradooda marka waxa la mid tahay saadiina soo martay xarfu saa saddex dhibcood lahayd taada ku xigtay iyo waxa weeyaan daalkiina soo maray ayaa isku mid yihiin daalka ku xigay daalkii dhibicda lahaa marka carabka ayaa la soo saaraya xogaa yar loo soo baxaya caaradiisa baa la moodaa maadaama dib foolasha sare caaradooda lagu qabanayo dhaa balorana kuwii hore waxay kaga duwan tahay waa la weyneynaya ضا halka tiyore zal ya sa laga laha tan waxa la oranayaa dha wala weyneynaya tii tan ka horeysay laakiin ee taa ahayd waxa lagu qabanayaa carabka caaradiisa waxa lagu qabanayaa foolasho halkay ka biqleen foolasha sare halkay ka biqleen marka taa ayaa iyada la oranayaa tanna dha inta badan tan ay dadku khaldaan Soomaalida oo waxay iska yiraahdaan لا بدتك سكران مي كاسو حرف كلو غارو نو سو سودا marka dha badaysa way xarafka 17aad ayuu kaasi ahaa waxaynu u gudbaynaa xarafka 18aad ee kamid ah xuruufta higaada xarafkan waxa loo yaqaanaa xarful ayn al-ayn qaab qoraalkiisu waa sidan halkan ayaad ka bilaabaysaa sidaas ayaad u yeeraysaa deedna dabadii ku daba xidhnay jiimkii iyo xaadi iyo khadi oo kale ayaad ku daba xidhaysaa marka iska fiiri halkaas aad ka bilaabaysaa warka halkaas aad ka bilaabaysaa sidan aad oranaysaa saas aad dhahaysaa halkaas oo kale markaad joogto ayaa dabadana aad rogaysaa marka meesha laga bilaabayo aad bay muhiim u tahay iska fiiri xarful ayn ayaa kana leh waan ka gudbay waxaan u gudbayaa xarafka 19aad ee kamid ah xuruufta higaada xarafkan waxa loo yaqaanaa حرف الغين qaab qoraalkiisu طبعا tartiibtii quruxda badnayd baynu ku jirnaa ee xuruufta isku midka isku xijisiinaysay xagga qaab qoraalka waxa weeyaan qaab qoraalku marka waa sidii caynka oo kale sidii hadda aynu sharaxnay buu noqonayaa laakiin kaliya wuxuu kaga duwan yahay dhibicdaas ayuu kaga duwan yahay waxaan loo yaqaanaa xarful ghayn Soomaalida inta badan waxay dhahdaan ghayn inta badan cid isticmaalaysa oo yani waxa weeyaan ma arkin carabigana oo kuma jirto basideeda oo kuma jirto marka ghayn
غين 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 إن لا وينين بوليه مركا وينين تاسم بالله قشيبا مرة يعني غين هذان لكن ما كرد يعني مركا لقول واقعي غين 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 يا ذرنيس وي واكا قد بيا وحنو قد بيا حرف كلباتناد كترسن حروف تهجادة حرف كانوا حلو يقانا حرف الفاء حرف الفاء فاء ayaa la yiraahdaa faadana qaab qoraalkii warsadan inta yar ayaad soo rogaysaa qaybta ayaad soo rogaysaa deedna qaybtii bacda ku daba xidhnayd oo kale ama bacda hoosteedii oo kale itaadiya saadiyade hoosteedii oo kale ayaad u samaynaysaa marka waa alif yaro jeefta oo hadana saa loo soo qoraa lahayd marka madaxana si ay u duuban tahay xagga dhibcaana xabada ay leedahay fa ayaa loo yaqaan way xarafka labaatanaad meekoobiya labaatanaad dhaho ee kamid ah xuruufta higaada waxa loo yaqaanaa ama loo garanog yahay xarful qaaf alqaaf qaaf kani waxay isku dhow yihiin faadi طبعا ما oran karo isku eg yihiin laakiin waa isku dhow yihiin isku yani waa isku eg yihiin laakiin ma dhihi kara baan ka wada isku mid bay yihiin qaab qoraalka oo dadku waxay moodaan inta badan qaab qoraalka isku mid yihiin waxay ku kala duwan yihiin dhibcaha un tahay طبعا dhibcaha waa ku kala duwan yihiin oo faadi kan ka horeysay hal dhibic bay lahayd halka qaafkan uu kala yahay laba dhibcood laakiin qaab qoraalkana inta madaxa duuban bay ka siman yihiin mooyaane qaybtan hoosta kama sinna oo qaybtan hoosta faadi way fitsanayd oo saasoo kale intay yara يعني waxa weeyaan xoodnida dabcan ku jirto fitsanid toosan ma aha laakiin way dheerayd baan ka wada saasoo kale meelaha markay gaadho ayaa saa loo laabay laakiin kan way gaabanta iska fiiri qaafka way gaabanta marka qaab qoraalka waa khalad hadaad sidii faa'id u qorto madaxan marka duubto sidii faa'id oo kale qaybtan waad soo koobaysaa marka waad soo rogaysaa halka faa'id ay ka yara dheerayd marka madaxa ayru bay ka siman yihiin ee waxay ku kala duwan yihiin faa'id way dheerayd qaybtan qaafkana waa la soo koobaya dibcahana dabcan waa ku kala duwan yihiin oo faa'id hal dhibic ay leeyahay halka qaafkani uu kala yahay laba dhibcood ha ku soo celiyo faa'id bal dayla fiiri faa'id warkaygu waa kan halkan madaxa marka saa loo duubay saana loo dheeriyay qaybta waa la dheeriyay markaas la soo laabay hal dhibic ayana lahayd laakiin qaafku bal hadayla fiiri isagana qaafka ila fiiri qaafku madaxa markaan duubnay sidii faa'id maynu dheeriyay markii waynu soo laabnay laba dhibcoodna waynu u yeelnay darsigeena maanta waxa uu ku joogaa 6 xaraf waxaanu qaadanaynaa tatbiiqaadkeena aynu qaadan jirnay ama qaabkeenu muraajacayn jirnay waxaanu oran jirnay turuqul muraajacati الثلاث dadkii ila socday طبعا hadii aad fiidiyogan u daartayna aad iyo aad baan kugu nasteexanaya inaad labadii darsi hore soo daawato wayhay qaabka wax loo muraajaciyo saddexda ee aynu ikhtiraacnay xarafka aan soo wado aad garato oo sheegto xarafkii waa kan hadda soo doolinaya isagoo waxa weeyaan cararaya bal xarafkan hadda garo kuwii imika xarfu dhaa yani ga sheegaya laakiin marka hore waxaan idhi hadaad inaad ka fikirto u baahato iska istaajisan kartaa fiidiyoga deedna waa jawaab baad bixin kartaa deedna jawaabtiida iyo jawaabtaada inay soo faqaan ayaad fiirin kartaa xarafkan kalena waa xarfu dhaa kii horena muxuu ahaa dhaa marka ka dhibicda la ayaa ka carabka la soo saaraya wayhay kanna waxaanu leenahay waa cayn waa ghayn fiiri dhibicdii ayuu wataa waa ghayn wayhay sida anigu baan u yara gafay baa laga yaabaa inaad adiguna u gafto iska fiiri marka kan waxa loo yaqaanaa al-ayn waa kii bila dhibicii way kan waxa loo yaqaanaa fa waa kii halka dhibicda lahaa kan waxa loo yaqaanaa qaaf waa kii labada dhibicood lahaa laakiin waxaan kaloo baraarujinay kaliya dhibcaha maaha labadan waxay ku kala duwan yihiin faa'id halka way yara fitsantahay iska fiiri kanna marka wuu soo rogay way marka waxaanu sameyn jirnay maxaan ku kala gartay markaan hadda idhi tan waa dhaa tan waa taa kan waa ghayn kan waa ayn kan waa fa kan waa qaaf maxaan ku kala gartay soo dhibcaha maaha marka waad fiirinaysaa mid baan hadda kala siinaya ku yahay baad sheegaysaa waa kan waa dhaa kana kalar kala siinaya isla kalarkii uma siinaya waa taa maxaad ku kala saartay dhibicdaad ku kala saartay kana kalar siinaya waa ghayn baad leedahay kana kalar siinaya waa ayn maxaad ku kala saartay dhibicdaad ku kala saartay way kana kala siinaya waa qaaf mise waa fa kan kalena waa qaaf maxaad ku kala gartay maad kan qaaf fatiraahid kow dhibicdan ku kala gartay oo kan hal dhibic ayuu leeyahay kana laba dhibic ayuu leeyahay wayhay waxaan kaloon ku kala gartay yani kan waa soo yar kooban yahay marka la soo rogayo kana waa yara fidsan yahay faa'id waa yara fidsan tahay
qaybta labaad waxaynu samayn jirnay muraajacada qaybteeda labaad hadda waynu isku dhex daadinay qaar sidoodiiba u kala horeeyaan qaarna waynu isdaba marinay marka adigu tartiibi buugaaga iyo qalinkaaga diyaarso had iyo jeer hadda fiidiyooga iska istaaji tartiibi mid walba tii horreysay qor tii kale ku xigtay qor ta kale ku xigtay qor ta kale ku sii xigtay qor ta kale ku sii xigtay qor ta kale ku sii xigtay qor lixdii xaraf sidaa u qor way waxaan filayaa inaad dhammaysay oo waxa weeyaan buugaaga iyo qalinkaagii aad ku qortay iminka aad sugayso bal anigu warka aan soo wada inaan iswaafaqno haddaba aan keeno waxa ugu horeysa xarfu taa haddana waxaa ku xiga xarfu dha marka labadan tanaa horeysa way waxaa ku xiga cayn waxaa ku xiga ghayn marka labadan kanaa horeeyey haye waad la socotaa talo ma gaftay ya adigunba isagiyo rabbiga haddaad gaftay dhib ma lahan ardaygu waa gafi karaayo waxa weeyaan dee mar dambe uun inay kugu soo noqoto unbaa khalade waa inaad duruus ka faa'iidaysato aad ku celceliso haddii aad saxdayna rabbigaa mahadi kan waxaanu leenahay waa xarful faa haddana waxaa ku xiga qoof marka waxaanu ogaanay labadan inay iska tartiibsanaayeen oo waxa weeyaan waxba ayna kala hormarsanayn way waa noocii labaad ee waxaanu muraajacin jirnay qaybta saddexaad ee waxaanu muraajacin jirnay waxay ahayd uktub maa yumlaa calayka uktub maa yumlaa calayka waxa lagu yeedhinayaad qoraysa oo waxa weeyaan adigu isku hawlin intan inaad imika akhrido dib baad ka akhrin doontaa insha allah markaynu meelo hore gaadhno waxaanu uga jeednaa uun inay na xasuusiso qaybta saddexaad maxay tahay qaybta saddexaad waxay tahay inay cidi kuu yeedhiso oo marka koobaad ay kugu yeedhiso bitariiqatin cashwaaiya qaab ay isku dhex laaqaysa sidaa markaas oo kale salaankaasoo kale ku yeedhinaya faa qor buu ku odhanaya haddana dha qor buu ku odhanaya haddana cayn qor buu ku odhanaya haddana taa qor buu ku odhanaya yani qoof qor saasuu suu ka laaqlaaqaya hadduu doonana wuxuu samaynayaa marka labaad bitariiqatin murattaba qaab tartiibsan buu kugu yeedhinaya oo sidan ay u tartiibinay caadiga xarfu taa dha cayn ghayn faa qoof sidaa u qor buu ku odhanaya oo kolba mid ayuu de yani ku yeedhinaya oo waa kaynu lahayn waa macallin adigo amarka siinayso ood leedahay marna igu yeedhi qaab isku dhex daadsan marna qaab tartiibsan igu yeedhi aad ku odhanaysa weeyaan haddii aad weydina labadan ayaad ku kaaftoomi doontaa insha allah waa ku anfici doonaan waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen fideogan ilaahay ha idinku anfaco ciddii aad isleedihiin waa anfacayaana gaadhsiiya baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu